war degdeg ah maalintii dhaweed waataan idinla wadaagay dadka qaxootinimada ku yimi sifada qaxootinimada waddankan ku soo galay xilligii madaxweynihii hore xilka ka degay uu xukumayay waddankan ee aan weli green card ka helin kiisaskooda dib baa loo furayaa oo dib baa loo wareysanayaa xogta noocaasaan idinla wadaagay soo ma ahayd sax bay ahayd laakiin xog kalaa wehelisaa oo ka dambaysay dadka aan weli green card ka helin ama sharci ha ku soo galaan ama yay ku soo gelin waa la qaqabanayaa waana la qaqabtay dad badan baa la xirxiray qaaraan aqaanaa jira ma garanaysaa marka arrintu aad bay u adag tahay stateka Minnesota guud ahaan dalka Mareykanka laakiin gaar ahaan stateka Minnesota iyo stateka Illinois la yiraahdo ay magaalada caanka ku ah magaca Chicago ay ka dhisan tahay labada state ba xaaladoodu waa cakiran tahay maxaan idin eri dadka waddankan jooga qaxootiga ku soo galay ee aan weli green card haysan oo sida sharciga ah ku soo galay waa la xirxiray waana la xirxirayaa warku sidaas weeyaan warku ma ogta yaa marka waa la xirxiray waa dadka ma rabo inaan luuqad kale ku hadlo ma ogta sidii maalintii dhaweed oo kale ayay warkeenu Soomaali ahaanayaan qofka haddaanu sharci haysan green card haysan oo waddankan si kasta ha ku soo galee uu waddankan joogo ammaan maaha xaaladiisu ammaan maaha ma garanaysaa dad badan baa laga qabtay waxayna samaynayaan oo arrinta ugu sii daran oo murugada la tahay qofka markay qabtaan tusaale ahaan ay ka qabtaan Minneapolis isla markaba isla saacado gudahood waxay ka tuurayaan way ambinayaan stateka ugu fog bay geynayaan sida Florida iyo Texas iyo meelahaasii geynayaan ka tuurayaan ma fahamteen xaaladdu waa cakiran tahay yaa xaaladdu waa cakiran tahay marka ha lays ilaaliyo ha laysu badnaado dadka aan sheegay oo aan haysan deganaanshaha rasmiga ah aan haysan ama xeraystay ama xog sugaya ama cusubba oo aan weli gaarin xilligay ku xeraysan lahaayeen deganaanshaha warku waa deganaanshaha inaan magaca kale iska dayno weeye deganaanshahaas ma garanaysaa aan weli haysan guryahooda ha joogaan warku intaasuu ku dhan yahay hays ilaaliyaan haysu badnaadaan markay magaalada marayaan xataa haddayba soo baxaan oo magaalada joogaan yay tegin meelaha halista ah oo laga filan karo inay Soomaali imanayso oo laga qaban karo yay imaanin ma garateen dhammaanteen oo dhan ilaahayna ilaaliyo mid sharci haysta iyo midaan sharci haysanba xaaladiisu ma sugna waddankan Soomaaliyay is ilaashada isgarabsada iscaawiya iskaalmeeya isu hiiliya aad iyo aad waxaan u ammaanayaa gabdhaha iyo wiilasha maalin walba habeen iyo maalin u taagan inay cod dheer ku hadlaan oo ay communitygooda matalaan difaacaan mudaharaadaan ilaaliyaan aad baan gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed mahadsanidin u leeyahay waxaan kaloo mahadsanidin leeyahay dadka waddankan u dhashay qalbiga wanaagsan leh naxariista leh cadaaladda yaqaana og in wax badan oo maaragtay la sheegayo Soomaalida iyo communitiyada la midka ah lagu samaynayaa ay cadaalad darro yihiin ama laga sheegayaa ay yihiin dulmi iyo duurxul oo u taagan dariiqyada inay ku qayliyaan oo ku mudaharaadaan nimankan duulaanka ku soo qaaday labada state aan hadda magacooda sheegay shacabka Mareykanka garab taagan aad baan ugu mahadnaqayaa Soomaalida garab taagan communitiyada kale Hispaniga ah garab taagan ma garanaysaa marka mahadsanidin walaalayaal dhammaantiin mahadsanidin Soomaalidana waxaan leeyahay gabdho iyo wiilal door ah oo badan oo waxaa jira wax bartay geesiyaal ah sharciga waddankan yaqaana
oo habeen iyo maalin u taagan inay maaragtay ay tusaan in community-ga iyagu cagihiisa ku taagan yahay waa aragteen wax fiidiyoyaasha la sheer garaynayo niman iyo gabdhaba rag iyo dumarba oo ma garanaysaa laf laga laqi waaye aad iyo aad waxaan leeyahay isku duubnida iyo isgarab istaaggu waa wax ummad dhisa weeyaan kala qaybsanaanta iyo jaajuuska waxaa jiraan rag iyo dumar badan oo jaajuusiin ah oo luusaris ah oo lumay oo maaragtay waxay yihiin la aqoon oo aan soomaalinimadooda u istaagi karin amaba dhibaatada soomaalida lagu hayo raalli ka ah ama qayb ka ah kuwa ku jira nimankan afka duuban ka mid ah Soomaaliya ka mid ah waa aragteen baraha bulshada waa ku aragteen kuwa niman garanaysaa online-ka ka taageera oo boostiyada iyo commentiyada arkaysa kuwa Soomaaliya oo aad u jeedo oo taageeraya waxa dadkooda lagu sameeyo yani waa app weeyaan waxaas waa qof waa dad lumay waa macnaha maxaa la dhahaa waa qof dhintay oo maxaa qof aan imaanna nooleen miyaan dhahnaa waxaan dhahnaa waa qof okay waxa ku haboon waa qof shakhsiyadiisa luntay qof ummadiisa ka soo horjeensanaya siyaasad ahaan iyo qofku fikir ahaan iyo caqiide ahaan iyo dadku ugu kala duwanaan karaan laakiin DNA-ga luma kala duwanaan karo si kasta wax kale maartay u aaminsantahay ama dadkaaga uga fikir duwan tahay waxa kugu jira dhiigoodii magacoodii baa wadataa ma garanaysaa magacoodii baa wadataa iyagaa ku dhalay hooyo aabba Soomaaliyeed baa ku dhalay ilaahay ka sukow adduunkan ma timaadeen haddaan labada xalimo iyo faarax iska ka dhalin so waxa la yiri qofkii xalaal ku dhashay baa xil dhiba ay Soomaalidu tiraahdaa qof xalaal ku dhashay baa xil dhiba hadda aragto nin dadkiisa hoos ugu soo noqonaya oo jaajuus noqonaya oo dadkiisa dibin daabiyeynaya oo ummadiisa masaakiinta ku diganaya ama ku farxayaba dhibaatada lagu hayaa waa loser waa qof khasaaray dhinacna wax ma tarayo dhinaca uu taageerayana wax ma tarayo dhinacuu ka tagayna dhibaato awalba ku hayay oo haddana ku haya marka duniduba culays ku yahay qofkaas oo khatar ku yahay naftiisu xataa halis ku yahay waa qof heeriyadii cune waa heeriyadii cune so qofkaas oo kale waxa leenahay dufow yaa nacas dhalay ma nacas baan oranaynaa waxa dhici karta qof wanaagsan family wanaagsan inuu ka dhashay hooyo aabe ku soo tabcayo u hanweynaa inay ku khasaareen baa dhici karta ma waaridka waxba kama sheegayno laakiin qofkaas oo kale waxa leenahay dufow inta kaliya ku leenahay mudaharaad ahaan hal qofna ma aanad dad badan oo badan baraha bulshada ku aragnay kuwa online-ka ku aragnay kuwa live-ka ku aragnay TikTok we know you waqtiguna wuu samaan doonaa we know you waqtiguna wuu hagaagi doonaa ma garateen marka xalku caynka anigu xadeed hareerahaygan eegaya markaan idin sheekaynayo ya anigu xaaladaydu markaan idin sheekaynayo maahi doqon ee hareerahan eegaya ma garateen marka saaxiibayaal toosoo isku tiirsada Soomaaliya ha noolaato Soomaalidu ha midowdo ha baraarto ha barwaaqowdo ha badato cadowgeedu ha jabo ya Soomaalinimadan dadka kaga sareynaa yep anigu waan jeclahay dadkayga iyo dhulkii Ilaahay iga beeray iyo dadka Ilaahay iga beeray waan jeclahay waa dhici kartaa inaan ka fog waxyaabo badan aan kaga fogahay oo kaga fikir duwanahay laakiin koriyo hoos koriyo hoos waxaan ahay Soomaali ama haddaan cirka tago ama haddaan dhulka joogo markasta Soomaali baan ahay so waxaa jira aan la inkiri karin waxaan la inkiri karin okay dadku waxaan idin fikir ahaan iyo caqiide ahaan way kala duwanaan karaan laakiin DNA-ga laguma kala duwanaan karo hadaba hooyo aabe Soomaaliyeed ku dhaleen waxaad tahay garac ama waxaad tahay caaq ama waxaad tahay doqon ama waxaad tahay qof lumay oo naftiisa aan war isu hayn wuxuu samaynayaan ogeyn okay that's it ku fogaan mayno sheekadeenna baa u soo noqonaynaa saaxiibayaal sheekadeenna waxay ahayd nimankii way joogaan area kastay joogaan saaka waxaan tagay
waxaan fahmi doonaa dadka yaqaana dhulka aan ka sheekayn saaka waxaan tegay waddada centraalka gaar ahaan areada dukaanka Holylandka la dhaho iyo Wells Fargaha ku dhow bangiga ku dhow waxaan ku yiri Holylandka albaabadii waddada weyn u jeeday waa la xiray albaabka baarkinkoo dambe baa dadku ka galayaan oo ka baxayaan jidadkii waa haawanaysaa waddadii centraalka oo dhan waa haawanaysaa cidi ma joogto ma fahamteen yaa cidi ma joogto waa lagu kala cararay waxaa jooga markaa oo aan mahadsanidin leeyahay dad Maraykan ah oo waddankan u dhashay oo jecel dariskooda oo Soomaalida jecel oo ajaanibta kala jecel oo og inay yihiin dad hard worker oo waddankan ammaan iyo u soo raadsaday inay nolol toodii dhaantay ka samaystaan oo iskoys walba taagan laba saddex u taagan oo mikrofoono iyo firimbiyaal haysta oo nimanka goortii arkaan ku qaylinaya intaasaan soo arkay waan ku soo arkay waddada centraalka saaka hadeer 2 saacadood ka hor meelaha ma garateen hadeerna lugtaydii caadada ahayd oo caadada ii ahayd baan u soo baxay marka waxaan rabay inaan update-ka idin siiyo waxyaabaha ka cusub deegaankan aan ku noolahay iyo waddanka Mareykanka gaar ahaan xaaladda taagan ee nimanka dadka afduubanaya warku caadi ah soo ma muuqaalkan sii share gareeya saaxiibayaal like la saaro waddada waa siibasho aragtaan waa turunturoonaynaa baraf baan ku turunturoonaynaa baraf yaa hareeraha sidan ay u egyihiin muuqaalkan sii share gareeya saaxiibayaal is ilaaliya oo is ilaashada is weheshada isku duubnaada isu hiiliya jaajuusyada iyo shisheeye kalkaalka iyo dadka cadowga u adeegaya banaanka keena ma garanaysaa Soomaalidoo dhan ma wada xuma qaar xun way ku jiraan oo tuuga ah qaarka in la maxkamadeeyo la xirxiro raali baan ka ahay warkaygu cad yahay qofkii tuug ah ee waddanka sharciyadiisa jabiya ee ku xadgudba ee xatooyo sameeya ee dhac sameeya ee khiyaamo sameeya oo ama cid kala dulma ama ku xadgudba hanti qaran ama hanti dadow ku xadgudba in la xiro raali baan ka ahay 100% in la tarxiilo raali baan ka ahay 100% laakiin ummad dhan in la jaa'ifeeyo oo cid walba ka mid tahay ummad dhan oo cid walba ka mid tahay sagiir iyo kabiir leh nin wax bartay iyo jaahil leh qof xanuunsan iyo qof caafimaad qaba leh in kulli hal magac la wada siiyaa waa ayaan daro waa wax aan qaadan karin okay waa wax qof damiir leh aanu qaadan karin oo ogolaan karin oo san aqbali karin ma garateen marka hadalka ugu weyn muuqaalkaygan waxa weeye kor ilaa hoos kor ama hoos maye kor ama hoos ama dhex meel kasta qofku haysigeeyo ama hankiisa ama aqligiisa ha joogo qaarad walba ha joogo qofku hooyadiis iyo aabihiis waxay ahaayeen buu yahay haddaa aragto qof ku farxaaya dhibaato hooyadiis iyo aabihiis iyo dadkiisa ku dhacaysa ama saamaynaysa dadka la isirka ah ama qof bini aadanaba saamaysa anigu iskaba dhaaf dadkayga anigu bini aadamkoo dhan baanba u quurin in wax dhibaato ah ay gaaraan iskaba dhaaf Soomaaliya insaanka oo dhan baan jeclahay bini aadamkoo dhan baan jeclahay mana ogoli in qof bini aadan ah la dulmo sidee baan u qaataa marka in dadkayga la dulmo ma qaadan karaa in dadkayga la dulmo no way ma qaadan karo isku taga isku tiirsanaada toosa may ahayd wixii la oran jiray ii sheega heestii Soomaaliya toosoo isku tiirsada good teeda kale mid kale idin sheegaya haniyad jabina waxaa jira dhalinyaro inay daawato badan dad badan oo dhalinyaro ah oo aan waayo arag ahayn inay daawanayaan baa dhici karta dunida xaaladahan oo kale way soo maraan dunidu ma wada ahan barwaaqo farxad nimco ma wada ahan dunidu waxay leedahay up and down wax la yiraahdo dunidu maalinna way kugu adag tahay xaaladdu oo season adag baa jira maalinna waxaa jira season dhexdhexaad ah maalinna season ay bahashu kuu foorarsato kuu kufto oo aad baraare iyo barwaaqo iyo farxad aad meelaha kala dhigto weydo bay jirtaa dunidu waxay leedahay kala duwanaansho season kala duwan macnaha xilliyo kala duwan marka seasonkii aad kaabay Soomaalidu ku jirtaa gaar ahaan Soomaalida waddanka ku nool marka niyad jabina waxba isbedeli doona
teeda kalena waxa isbedeli doonaa waxay yihiin doorashooyin baa dhici doona doorashooyinkaas inaad soo baxdaan oo aad codkiina ku aarsataan fiiri ya codkiina inaad ku aarsataan doorashooyinka gaar ahaan doorashadan hadda sanadkan dhammaadkiisa imanaysa inaad soo baxdaan dadkiina codayn kara oo xaqa u leh inay codeeyaan inay soo baxaan oo dhinaca saxda ah u codeeyaan oo aysan marna ma khaldamin dad badan baa hadda xukuumaddan hadda waddankan ka jirta u codeeyey sida aan xogta ku hayo oo maantana aashuun ku addimaya maantana guryaha ku xiran marka nasiib darro waxaasoo kale yay marnaba dhicin codkiina dhinaca saxda siiya ma raba inaan magacyo sheego is-ilaashada saaxiibayaal soomaalinimadu ha sarrayso waan guulaysan doonaa ma fahamteen waynu guulaysan doonaa geesinimana ha la muujiyo dadka sharciga leh bannaanka ha u soo baxaan oo nolosha caadiga ah ku noolaadaan oo ha hadlaan oo ha duubaan oo ha mudaharaadaan oo xaq bay u leeyihiin dadka sharciga leh oo waddankan degan oo maraykanka ah ma fahamteen maskaxiyan iyo jir ahaanba xabsi ha isgelinina ma garanaysaa weligiinna waxaa muhiim ah inaad maankiina ilaashataan meesha qofku uu xor ka noqdaa ama uu xabsi ka galaa waa maanka maskax xor ah haddaa haysato oo aan lagu hadlin ee iyadu hadasha aan cid u hadline maaragtay waxaan leeyahay aan laga dhex hadline iyadu fikirkeeda hadasha qofkaas waa qof caafimaad qaba yaa marka ma garanaysaa maskaxda xor ka ahaada weligiin maskaxda wayna xor ka ahaataan saaxiibayaal so muuqaalkan idinku badin maayo mid hore oo maalin dhaweyd maqaaxi nin saaxiibka i geeyey baan ku daba xirayaa oo waa ogtihiin anu waxyaabaha qalaad iyo waxaan ahay master curious baan ahay curiositygaygu waa iska taagan yahay waxaan jeclaa inaan caalamka wax ka barto marka maqaaxi qalaad baan maalin dhaweyd tegey baan muuqaalkan gabagabadiisa ku sii xirayaa dhiiri geliya saaxiibayaal suulka kor ha loo taago suulka kor ha loo taago ha la sameeyo ha la dhiiri geliya muuqaalkan sii sheer garaya saaxiibayaal dadka waddankan ku cusub ee aan weli green card helin sharci helin deganaansho helin ha is ilaaliyaan saaxiibayaal ha is ilaaliyaan haddaa qof saaxiibka ah ama walaalka ama qaraabadaada taqaano u sheer gareen muuqaalkan aad baa u mahadsan tahay waa waxaan hubo dad badan baan aqaanaa oo ku maqan hadeer gacanta dadka afduubta oo ahaa dadka cusbaa oo sida sharcigaa waddanka ku soo galay aad baa u mahadsantihiin muuqaalkan wuu sii soconayaa waxaad sii daawataan qaybtan xigta ee aan idiin sheegay maqaaxi waxaan tegey oo lay geeyey nin saaxiibka i geeyey south Europe samaya south Europe-kayga maahana eastiga bari Yurubta bari maqaaxi Yurubta bariya oo lay geeyey iyo wixii aan ku soo arkay ayaan dhaweyd ila daawada saaxiibayaal si ballaaran waa inaa dunida u aragtaan lensiskan xaafadaha arka iyo qabaa'ilaadka iyo gobollada sabankan xunka ah maskaxdiina waa inay ka sarraysaa halkaa kore geeskaasoo dhan inaad leedahay waa inaad adigu aad aaminsan tahay kalabar Ethiopia kalabar Djibouti Djibouti oo dhan kalabar Kenya ilaa waxaasoo dhan inaan inagu iska leenahay oo inagu joogno oo qayb iyo xukun layna ku wada waa in ogaataan qaybi oo xukun boom saaxiibayaal waa islaamaya soo dhawaada marka hore meeshan jooga waa dareemi kartaan waa maqaaxi ama maqaayad sidaa u taqaano reer waqooyiga waxay dhahaan hodheel ya waxaan joogaa hodheel reer Hargeysaan sheegaya hodheel baan joogaa hodheel ya marka hodheelkan waxaa nin saaxiibka igu cashiray isaga waa camera shy halkaasuu joogaa marka waxaan idhaahdaa afaarahaygii baan gelayaa waan duumanayaa marka waxa iska leh Yurubta bari maqaaxidan Yurubta bari baa iska leh Yurubta bari waxaa la yidhaahdaa Poland iyo Ukraine iyo Czech Republic iyo Croatia iyo dhulkaas ma fahamteen Yurubta bari baa iska leh maqaaxidan marka waxay hayaan waxyaabo kala duwan waxay hayaan sausage waxay hayaan cuntooyin caan ku yihiin oo gulash ma garanaysaa waxyaabo badan aan waxaan haystaa gulash iyo Ukrainian sausage ha ka fekerenina pork ba ama waxaas waa beef weeyaan waa kan sidaan u eegyahay aan idin baro
وبيف ويه كنا sidoo kale waa beef yeah so صاحبكي waxa la thank you my friend waa tender hilib lo-aad oo jilicsan weeyaan oo suqaar oo kala marka kan waa gulaash yeah waxa la dhahaa gulaash waa maraq rib ah oo maraq rib ah saaxiibayaal oo waxyaabo xawaashiyo kala badan noocyo kala duwan leh ay ku jiraan waxaan ka dareemayaa filfishi madoobeed waxaan ka dareemayaa carrot waxaan ka dareemayaa yaanyo ama tamaandho sidaa u taqaan baradho iyo hilib lo-aan ma garateen waa kan marka bariis iyo baasto iyo canjeelo unbaa maaragtay inteena badan dabada ay ka wadnaa marka way fiican tahay in cuntada caalamkana la barto ya cuntada caalamka in la bartaana way wanaagsan tahay soo maqaaxidu waxay ku taallaa north eastiga Minneapolis aan deganahay waqooyi bari magaalada Minneapolis waa maqaaxi aad busy u ah sida arkaysaan dadku ay galaasheeda buuxaan dhowr qaybood oo dhowr khan oo kala duwan bay leedahay oo dadku si fiican u fadhiyaan waa maalintii ugu horeysay horay uma aanan aqoon sidaan isaga sheekaysanaynay wuxuu igu yiri niyow weliga maaragtay maqaaxi oo maxay ahayd East European ama ku aragtay Minneapolis cuntooyin baan ka sheekaynay moogtahay waxyaabo kala duwan cuntada Middle Eastiga cuntada Afrikaanka waxyaabahaas ka sheekaynay gaar ahaan cuntada Soomaalida East European food waxaa irinay Europe ay ugu dambeysay waxaan u xiisay gulaash yalla wiir gaariga ku soo bood halkan way keenay ojeedaan yeah so waxaan samaynayaa sida I hope inaa si fiican iyo aragtaan yeah si fiican baad iyo aragtaan kana tijaabinaynaa sausage lama hadli karaan ku lagama hadli karo soo dhawaada cuntada Yurubka bari kan qaad ku fiicnaan la qaadan doonanayaa fargeeto waa yeah waa sausage iyo basal iyo roodhiga noocaasa so waa very simple yeah wax kale kuma aanan darin waa ku darsan kartaa maxay ahayd ketchup ama sauce-ka aad jeceshahay oo kale waa ku darsan kartaa laakiin sidaan aan u daystay sidaan balaynka baan u daystay yeah waxaan samaynayaa malgacad baan soo qaadanayaa waa sii wadaya inaan duubayaa yaa waxaa taalla fargeeto keliya taalla meesha malqacado ma yaalaan so this is amazing my friends amazing yeah waa xilli galab ah oo galabnimo ay waqtigu u rogmaday waa qado iyo casho wax u dhaxeeya weeyaan okay qado iyo casho wax u dhaxeeya aad baan la helay haddaan rabo saan samayn karaa day roodhigan inta jaro roodhigan baa sidaan dhigi karnaa kaamarada ka ilaashada maraxa yeah saan samayn karnaa gulash
إنما عادي ما إنما هيك هذه ما صاحب يعني so وأكون mahadsantii saaxiibayaal sida aad noola socotaan aad baa ugu mahadsantihiin waxa weeye halkaas ay kasii soconaysaa waxa weeye faan wale fari kama qodnaya faan wale fari kama qodna hi you have nice food that looks nice yeah I have goulash and Ukrainian sausage yeah so maqaaxida adreeskeeda hoos baan idin dhigi doonaa haddii rabeedno qofkii xiisaynaya wuu tijaabin karaa ma garateen yeah so waxay idin waday aad baa ugu mahadsantihiin sida aad noola socotaan saaxiibayaal roodhiga iyo maraqa isku macaan saasaan leeyahay banaanku saas u weegaan yeah wow intadan markaan dhameeyo waan sii wadaya okay labada midaan sii wada baan isku hayaa mid kastaa midka kale dhadhan heer sare kalsii leeyahay markanaan ku jeensanayaa marna kale hilibka lo-aad waa tender lo-du waxay leedahay hilib buskud camala hilib jilicsan oo buskud camala markaad suqaar ama maraq ka samaysado ama suugo goulash I will continue to film. Marka waxaan dhameeyo